naagtan caloosheeda waxaa ku jira gooryaan 5 mitir ah laakiin qofna ma rabo inuu rumaysto waayo gooryaanka cabsida leh ee noocan ah wuxuu ka yimid kiniin ay u isticmaashay inay caato ku noqoto ana waxay ahayd gabadh dhalinyaro ah oo jidkuna u kaabaysan waxaana hadafkeedu ahaa inay noqoto moodel aan ah markii ay jaamacadda ka qalin jabisay waxay tagtay xafiis moodalada lagu shaqaaleeyo sida ay ugu socotay masraxa ayaa qofkii xafiiska joogay soo jiidatay laakiin markii ay ana mooday in shaqada lagu qabtay ayaa ninkii weydiiyey cabirka jidkooda markii ay u sheegtay in dhexda ay tahay 70 sentimitir wuxuu ku yiri aad baad u weyn tahay wuxuuna u sheegay inay tahay inay ka yaraato 60 sentimitir si ay moodal u noqoto tani aad ayay ugu niyad jabisay ana oo ooyeysa ayaa saaxiibteed wax u sheegtay saaxiibteeduna waxay u sheegtay inay si degdeg ah u caataysay iyadoo isticmaalaysa kiniin uu dhakhtar gaar ah qoray taas oo ana rajo gelisay markii ay heshay cinwaanka dhakhtarka isla markiiba ayay u tagtay dhakhtarku wuxuu u qoray kiniin caatayn ah oo aan dhibaato badan lahayn kaas oo ay moodalo badan isticmaalaan ana waxay bilaabtay daaweynta markay guriga ku noqotay waxayna si degdeg ah u caataysay ilaa ay jidkeedu noqday mid aad u qurux badan waxay dib ugu noqotay xafiiskii iyadoo muuqaal cusub leh markaasay shaqada heshay waxayna noqotay moodal aad loo yaqaan laakiin maalin maalmaha ka mid ah ana ayaa miyir dooratay xilli ay sawiro lagu qaadayay markii ay soo toostay waxay ka baqday in kiniinadu waxyeello u geysteen markaasay dib ugu noqotay dhakhtarkii baaritaan kadib wuxuu u sheegay inay qabto xanuun wadnaha sidaas darteedna ay tahay inay joojiso kiniinada ana oo aan rabin inay shaqadeeda luminayso ayaa baryay dhakhtarka inuu si kale u caawiyo markaasuu u keenay kiniin ay ku jiraan ukunta gooryaanka kaas oo aan dhibaato lahayn laakiin weli tijaabo lagu jiro ana si degdeg ah ayay u liqatay dhakhtarku wuxuu uga digay in gooryaankaas uu keeni karo dhibaato weyn uuna qasab tahay inay cuntada aad u xakamayso si aysan dhibaato weyn ugu dhicin ana waxay iska dhigtay inay raacayso laakiin markii ay guriga timid gaajo baa qabatay waxayna cunay weel dhan oo kareem ah haddana way gaajoonaysay qaboojiyaha ayay ka heshay miro qudhuntay markaasay cunay iyadoo xoogaa shaki gelisay gooryaankii dartiis ana waxay noqotay mid aad u caato ah shaqadeedii moodelnimada way u socotay muuqaalkeeduna wuu sii qurux baday laakiin sawir kasta oo laga qaado kadib waxay cunaysay digaag shiidan iyo jiis aad u badan iyadoo gebi ahaanba ilowday digniintii dhakhtarka tartiib waxay noqotay mid xanaaq badan jidkuna wuu daciifay ilaa maalin ay sawiro lagu qaadayay gabadhii dharka u xidhaysay ayaa dareentay inay toddobaad gudihiis 5 kiilo lumisay dharkuna ay aad ugu weynaadeen iyadoo argagaxsan ayay u oroday dhakhtarkii muuqaalkeedu wuxuu ahaa mid aad u xun indhaheedu way godoobeen bushimuhuna way engegeen waxay baryay dhakhtarka inuu gooryaanka ka soo saaro laakiin maadaama ay cunto badan siinaysay gooryaankii wuxuu noqday mid aad u weyn dhakhtarku wuxuu u qoray dawo gaar ah oo gooryaanka jidkooda ka soo saari karta wuxuuna u sheegay inay qabato gooryaanka isla marka uu soo baxo markii ay guriga timid ayay muraayada isku eegtay waxayna aragtay qof aad u caato ah kadibna waxay cabtay dawadii waxayna ku gashay weelka qubayska iyadoo qaawan daqiiqada yar kadib gooryaan weyn ayaa jidkooda ka soo baxay gooryaankii oo xanaaqsan ayaa bilaabay inuu ku wareego isla markaas saaxiibteed oo walbaysay ayaa timid inay xaaladeeda weydiiyo laakiin isla markii ay soo gashay qolka qubayska gooryaankii ayaa ku wareegay wuxuuna helay qof cusub oo uu ku noolaado